kulanti wacan daawadii ku soo dhawaada channelka xaqiiqsan media waa kowda bisha shanaad sanadka 2019 qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaanna waxaa kamid ah wasiir ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre oo goordhow iscasilay iyo ra'iisul wasaare Khayre oo si degdeg ah u soo magacaabay wasiiro cusub dib u dhac ku yimid shirkii Garowe maalinta biritaanka ay ku balansanayeen madaxda maamulka goboleedyada iyo dowladda federaalka dalka ayaa muqdisho uga qayb galay xuska maalinta shaqaalaha adduunka iyadoo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ballanqaad muhiim ay u sameeyeen shaqaalaha Soomaaliyeed dambaalka madaxweyne Farmaajo ee maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May oo arrimo xasaasi ah uu ku soo qaatay ayaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal sidoo kale warkayaga inta uu socdo waxaad maqli doontaan maxaa qadka taleefanka ku dhex maray Abwaan Guure maareeyihii hore ee tiyaatarka qaranka iyo ra'iisul wasaare Khayre ka hor inta aan xilka laga qaadin haddaba arrimo xasaasi ah oo dhex maray Abwaan Guure iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaan idiin soo bandhigi doonaa xubno muhiim u ahaa al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda federaalka iyo al-shabaab oo qarka u saaran inay burburaan akhbaaraadka caalamkana daawadayaal waxaa ugu waaweyn Mareykanka oo liiska argagixisada ku daraya ikhwaanul muslimiin intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markanna waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh channelkan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey ee aynu soo gelino sidoo kale haddii aad horey subscribe u tiri waad ku mahadsan tahay aynu gudogalnay wasiir ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre oo goordhow iscasilay iyo ra'iisul wasaare Khayre oo si degdeg ah u soo magacaabay wasiiro cusub ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa goordhow waxa uu magacaabay laba wasiir oo kamid ay uu buuxinayo xilkii uu baneeyay wasiirkii warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu xilka wasiirka warfaafinta Soomaaliya loogu magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo horey u ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa waxa loo magacaabay Cabdilaahi Cali Xasan waxaana tani ay ku soo aadaysaa xilli saacado ay ka soo wareegatay markii uu xilka iska casilay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa horey xilkani mar u soo qabtay waxaana hadda uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya dib u dhac ayaa ku yimid shirkii lagu balansanaa magaalada Garowe maalinta birita oo taariikhdan ay ku beegan tahay 2 bisha May sanadka 2019 iyadoona dib u dhacaasi waxa keenay ay arrimo muhiim ah iyadoona faahfaahin ay ka soo baxayaan waxa keenay dib u dhacaasi ku yimid shirkaasi wararka aynu ka helayno magaalada Garowe ayaa sheegaya in shirweynihii lagu waday inuu ka dhaco magaaladaasi oo dib u dhac ku yimid shirkaas oo lagu balansanaa inuu qabsoomo 2 bishan May oo ku beegan maalinta birita oo Khamiis ah iyadoo sidoo kalena la soo sheegay inuu dib u dhacay waxaana loo ballamay in maalinta Sabtida ah la isugu yimaado shirkaas ayaa lagu balansan yahay inay isugu yimaadaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada oo muddooyinkii dambe isfaham waa uu soo kala dhexgalay shirkaasi ayaa looga arinsanayaa xaaladda ammaan siyaasadeed geedi socodka doorashooyinka iyo wada shaqaynta dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka socday shirar gaargaar ah oo lagu arinsanayo shirkaasi iyo sida laga yeelayo madaxtooyada Soomaaliya oo shirar gaargaar ah ka leh shirkaasi ayaa waxa ay ilaa iyo had isku fahmi laayihiin qaabka ay kaga qayb galayaan shirkaasi iyo cidda ka qayb galaysa dhanka kalena ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa deegaano muhiim ah kala wareegay al-shabaab iyadoo xiisadna ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha danab gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeni Qaar ayaa wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona u xaqiijiyay in ciidamadu ay saraakiisha maleeshiyada al-shabaab ka saareen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka danab ayaa hadda howlgalo baaritaano ah ka wada gudaha deegaanka Bariire iyagoo door miina ahna ka saaray wadooyinka laga soo galo deegaankaasi ciidamada dowladda ayaa jab gaarsiiyay maleeshiyada oo muddo dhibaato ku haysay bulshada deegaankaasi waxaana ay ciidamada deegaanka ka wadaan howlgalo miinooyinka jidadka looga saarayo taasi oo ay shacabka soo dhaweeyeen gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka socda howlgal baaxad leh oo ka dhan ah al-shabaab halkaasoo deegaanada dhawaan laga saarayna ay ka socdaan howlgalo shacabka lagu caawinayo maamulana loogu hirgelinayo deegaankii laga saaray al-shabaab
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dhambaal ka diray maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa munaasabada maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May waxa uu dhambaal u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed. waxaana ugu hambaliyay dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed oo maskax iyo muruqba geliyay dib u dhiska iyo horumarinta dalkeena. waxaana uu xasuusan yahay dadaaladii wax ku oolka ahaa iyo doorkii taariikhiga ahaa ee shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin sooyaalka dalkeena, iyagoona saldhig u ahaa halgankii xornimo doonka iyo aasaaskii qarannimadeena. inkastoo shaqaalaha Soomaaliyeed ay ku shaqaynayaan daruufo adag sanadihii la soo dhaafay, haddana waxa ay muujiyeen howlkarnimo iyo dhabar adeeg, iyagoona fashiliyay yoolka argagixisada Al-Shabaab ee ku aadan kala dhantaalida rajada iyo yadidiilada shacabka Soomaaliyeed. waxaan ka tacsiyeenayaa waalidiinta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxdooda iyo muruqoodaba iyagoo u adeegaya dalkooda iyo dadkooda ku nafwaayay falalkii ay argagixisada soo maleegtay. dowladda waxa ay xoogga saartay dhamaystirka sharciga shaqaalaha iyo xaqiijinta inay ku shaqeeyaan xuquuq dhammaystiran iyo deegaano shaqo oo fayow ah. sidoo kale waxaa mudnaanta siinaynaa kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo xaqiijinta mushaaraad ku filan noloshooda, taasi oo aan ugu gol leenahay yareynta shaqo la'aanta ka jirta dalkeena, ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. dhanka kalena maxaa qadka taleefanka ku dhex maray Abwaan Guure iyo ra'iisul wasaare Kheyre ka hor inta aan xilka laga qaadin maareeyihii hore ee tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdilaahi Guure? waxaa laga yaabaa in dadka qaar aysan la socon in Abwaan Cismaan Cabdilaahi Guure uu ahaa ninkii lahaa fikradda iskaa wax u qabsashada cusub ama isxilqaan, oo ah ololaha ugu weyn ay dowladda maanta jirta ay ku dhisay qaar ka mid ah xarumihii burburay ee dowladda. waxay ahaataba Abwaan Guure maanta waa la culeystay oo waxaa isaga oo dalka dibadda uga maqan laga qaaday xilkii agaasimaha golaha murtida, waxaana maqli jiray kacaanka ilmihiisa ayuu cuna. saaxiibayaal, waxaan fursad u helay maanta inaan qadka taleefanka kula sheekaysto Abwaan Guure, maareeyihii hore ee golaha murtida qaranka oo xilkii laga qaaday. Abwaan Guure ayaa ugu horeyn weydiistay sida ay wax u dhaceen. waxa uu igu jawaabay shalay saacadu markay ahayd 1:00 duhurnimo waqtiga Muqdisho ayaa waxaa idaacadda kulmiye ee loo soo gaabiyo KNN ka baxay war ku saabsan inuu socdo wada hadallo u dhexeeya madaxda mucaaradka, maamul goboleedyada iyo madaxweynaha oo ah in la bedelo ra'iisul wasaare Kheyre. Abwaan Guure waxa uu yiri qiyaasii wax ka yar 1:00 duhurnimo iyo qadar 30 daqiiqo ah waqtiga Muqdisho waxa ay soo wacay ra'iisul wasaare Kheyre oo careysan, wuxuuna ifaray inaan shaqada ka eriyo wariyaha warka sheegay iyo agaasimaha idaacadda, isla markaana aan raaligelin ka bixiyo warkaasi ka baxay idaacadda. Abwaan Guure waxa uu yiri waxaan u sheegay ra'iisul wasaaraha inaan anigu awood u lahayn inaan shaqada ka eriyo wariye ka shaqeeya KNN kol haddii aan hadda mas'uuliyadda idaacadda haynin. teeda kale idaacadda xeer ayay leedahay dalkana sharciga warbaahinta ee baarlamaanka la mariyay ayaa xaq u siinaya wariyaha inuusan sheegin ila wareedkiisa ilaa ay maxkamadda ka codsato marka la horgeeyo. Abwaan Guure ugu yaraan 10 daqiiqo oo aan murmaynay waxba kalama dheefin, isagoo oo careysan ayuu taleefanka igu damiyey. kadib wax ka yar 5 daqiiqo waxa ay soo wacay wasiirka warfaafinta mudane Daahir Maxamuud Geele, waxaanu igu yiri saaxiib Abwaan Guure, waxa aan kuu sheegayo ogow wax lug ah kuma lihi, laakiin waa amar la isiiyey. waxa uuna ka soo baxay ra'iisul wasaare Kheyre oo ifaray inaan xilka ka qaado ee sida ula soco, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Daahir Maxamuud Geele oo qadka taleefanka kula hadlayay Abwaan Guure. Abwaan Guure waxa uu ku yiri buu yiri hagaag mudane wasiir, waajibaadkaada gudo, waxaad iga dambaysaba waa dayrta maanta ahi, adiguba idaacad waad leedahay, xilna dalka waad ka haysaa ee la soco. intaasi markii aan Daahir isdhaafsanay kadib waxa aan dhammayn 10 daqiiqo gudahood waxaa warka xilka qaadistayda oo si degdeg ka muuqda loo qoray loogu daawacay wakaaladda wararka ee Soona ee ku hadasha afka xukuumadda. marka aan leeyahay degdeg ka muuqdo waxaa mas-uuliyadda laga qaaday lagu sheegay agaasimihii golaha martida halkii ay ahayd golaha murtida. waa intii aan ka qoray Abwaan Guure. dhinaca kale warkooda ma hayo mana helin. warbixintan waxaa qoray wariye Ayaale Xuseen Cabdi oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed oo maamulo ka ah warbaahinta Ha Noolaato. xubno muhiim u ahaa Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dowladda federaalka, iyadoo Al-Shabaabna ay qarka u saaran yihiin burbur xoogan.
ciidanka maamulka ee ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa xaqiijiyay inay isku soo dhiibeen 2 xubnood oo kamid ah ururka Al-Shabaab. Taliska ciidamada nabad sugidda qaybta Jubbaland ayaa sheegay in raggan oo kamid ah qaybta dagaalka qaada iyo hubka ay wataan hadda gacanta lagu hayo, isla markaana ciidanka ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen. degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa isku soo dhiibay 2 nin oo kamid ahaa kooxda argagixisada Al-Shabaab, gaar ahaan qaybtooda jabhadaha loo yaqaano. Raggan iyo 2 qori oo AK47 oo ay wateen oo ay la soo goosteen waxaa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda Jubbaland ee gobolka Gedo, gaar ahaan kuwa ka howlgala degmada Doolow. Raggan waxaa lagu sameyn doonaa dhaqan celin ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska niisa ee Jubbaland. ugu dambeyntiina akhbaraadka caalamka daawadayaal haddii aynu eegno Mareykanka oo liiska argagixisada ku daraya Ikhwaanul Muslimiinta. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa shaaciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu ku fikirayo inuu ururka Ikhwaanul Muslimiin uu ku daro liiska ururada argagixisada. afhayeenka aqalka cad Sarah Sanders ayaa qoraal email ah ku sheegtay madaxweyne Trump waxa uu la tashaday kooxda amniga qaranka Mareykanka iyo waliba hogaamiyayaasha bariga dhexe kuwaas oo la qabo welwelkiisa ku aadan ururka Ikhwaanul Muslimiin. haddii ururka lagu daro liiska kooxaha argagixisada waxay taasi Washington u ogolaan doontaa inay cunaqabateen ku soo rogto shakhsiyaadka ama kooxaha xiriirka la leh Ikhwaanul Muslimiin. Talaabadan ayaa timi 3 toddobaad kadib markii uu madaxweyne Trump uu aqalka cad ku martigeliyay madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi oo ku amaanay inuu yahay madaxweyne wanaagsan, isagoo sheegay in xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo Masar uu yahay mid aad u xoogan. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka Xaqiiqsan Media waa naga intaa. Fadlan subscribe saar channelkan haddii aad ku cusub tahay, sidoo kale like iyo share tana ha ka iloobin, qaybta hoosena inaad faaladaada noogu reebto waa noo muhiim. waana mahadsantiin daawadayaal.